xildhibaanada labada aqal waad islaamaya salaamu allahu calaykum waqti dheer ma jiro waa hal daqiiqa la yidhi waxaan rabaa inaan ka gaarsiiyo wacyigelin kooban saad la socotaan safmarka cudurka halista ahaa waayahan ayaa socda oo weliba si xaddi xooggan oo noqday bandemic macnaha adduunyadoo dhan safmar ku sameeyey abuuray ama sababay dhimasho badan abuuray intaasoo kays oo malaayiin ah inuu ku dhaco welina safarkiisa uu socdo soona gaaray hadda qaaradaha yani qaarkood sida qaaradda afrika soomaaliya ay ka mid tahay haddaba waxaa weeye yani cudurkii wacyigelintiisa iyo wax badan ayaa yani aad ka war hesheen waxaan rabaa keliya wixii u dambeeyey in idila socodsiiyo maxaa yeele dad la socdaa tihiin cudurku siduu ku gudbo waa laga daalay waa la socoteen inuu ku gudbaayo muxuu ahay toqoyaanka ka imaanaya neefta soo raacaya ama qufaca ama hindhisada ama hadalka xataa doo u dhow yahay ilaa mitir 2 mitir inuu jirta in uu maaragtay uu ku gudbaayo kaas waa nooca tooska nooca dadban uu ku gudbaayo dhulka iyo meelaha iyo markuu ku dhaco oo gacmaha la saaro markaasna gacmihii afka iyo la saaro maaragtay sanka iyo indhaha qaabka ku gudbi karaa calaamooyinkiisna waa kuwa aragteen oo la socdo qufac iyo qandho iyo madax xanuun iyo urka waa dhumisid dhadhanka waa dhumisid iyo muxuu ahay to ugu dambeyntii uu noqdo oo foreen ama qaarjeex ama wax la yidhaha pneumonia oo halisa 3 qaybood loo kala qaybiyaa nooca la yidhaha mile oo 80% ah oo nooca sahlan astaamihii ay sahlan yihiin oo astaamihii xooggooda aysan yani u xoogganeen nooca kale la yidhahda severe waana 80% waa 80% nooca kale la yidhahda severeka oo 15% oo complicationkii uu soo baxay oo qofkii oo foreenkii ama pneumoniada ku soo baxday iyo qaybta kale saddexaad la yidhahda criticalka oo ah 5% oo ay ku jirto muxuu ahay to mortality rate-ka oo ah 3.5% marka dadka waaweyn ee 65 sano ka weyn ayuu halista u badan tahay ee sita underlying disease ama cudurrada xambaarsan qaarkood kuwa wadnaha kuwa muxuu ahay neef mareenka sida neefta oo kale dhiigkarka sokorta iyo waxyaabihii la mida cudurradaas ayuu ku soo dugaalaa halisna ugu yahay uu gaarsiinayaa stageka la leeyahay severeka iyo criticalka dhalinyarada iyo da'da yacni dhexe badana hadduu ku dhaco wuxuu noqdaa mile 80% newska u dambeeya rabay inaan idiin sheego waxay tahay haddii uu ku dhaco waxaa murun ka taagnaa daraasadahan isku khilaafsanaayeen in haddii cudurka uu ku dhaco inuu muxuu ahay to haddana ku soo laaban karaa wax la yidhaha reinfection taas waa laga hadlay daraasadii u dambeeyey WHO waxay soo saarayaan inuu develop garaynayo ama uu samaysanayo qofka waxa la yidhahda antibody ama immunity ama difaac oo laakiin aan weli waqtigiisa aan la ogeyn inay tahay 1 sano bar ilaa 2 sano saas awgeed at least dadka uu ku dhacay rajada la leeyahay waxa waaye inuusan reinfection degdeg yeelanayn arrinta ugu muhiimsan waa wacyigelinta iyo ka hortagga cudurka qofka qabo oo gurigiisa isku ilaaliya dadka kalena uga tura dadka oo iska ilaaliyo la qaato bahashan afka lagu xiranayo oo si joogta loo qaato la yaraysanin iyo gacmihii iyo si joogta loo dhaqo bacdama aan niri bahalka yacni neefta hadduu ku baxo dropletkii ama qoyaankii haddii ay ku dhacaan meel alwaax ah waxay jiri karaa ama uu jiri karaa viruskii ilaa 8-9 saacadood haddii meel dhala ah ama meel balastica uu ku dhacana ilaa 3 maalmood jiri karaa oo infectionkiisa jiri karaa saas awgeed waxa la amrayo waxa waa si joogta ah in loo dhaqo aad baa mahadsantihiin wacyigelintaas waxaan rajaynayaa inay nagu ducdo billahi tawfiiq assalaamu calaykum دكتورku aad iyo aad buu mahadsan yahay waxa inoo bilaaban doonaa daafurkii iyo munaasabadii haddana waxaa soo gelaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ay dastuuri tahay inuu furo kalfadhiga 7aad baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan sugaynaa inuu soo galo madaxweynuhu kadibna toos waxaan u guda gelaynaa munaasabadii furitaanka xafladda madaxweynuhu wuu soo galay waana soo dhaweynaynaa mudane madaxweyne soo dhawow furitaanka kalfadhiga 7aad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya
waad mahadsantihiin sida caadada ah munaasabadan oo kaleeto waxay mar walba caado inoogu tahay furitaanka saban socodka golaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya labadiisa aqal kalfadhigan waxa weeyaan kalfadhiga toddobaad munaasabadiisuna waxay noqonaysaa munaasabad waxoogaa ka duwan munaasabadihii hore xaaladaha jira awgood laakiin waxaa nasiib wanaaga in wadciga aan ku jirno iyo ka garqaadashadiisa iyo sida loo agaasimay inay dhammaan howlwadeennada iyo xildhibaanaduba aad iyo aad ugu mahadsan yihiin qof walba ilaalinta iyo tixgelinta fayadhowrka inta badan munaasabadeenna waan gudageli doonaa saxaafadda waa mahadsantihiin waseshinkiinii waxaan gudagelaynaa mudane madaxweyne furitaanka munaasabadda oo ugu horeeyaan aayadaha qur-aanka kariimka uu inoo akhrin doono mudane xildhibaan sheekh shaacir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم munaasabadan toos u guda gelaynaa iyadoo wakhtigu aad u xisaabsan yahay waxaana ajandaheennii waxa ahaa intan inuu ka badnaa laakiin aad baa loo soo kokoobay waxaan hadda soo dhoweynayaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish mudane guddoomiye soo dhow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مدحوينها جمهورية قدونك لبضى أقل رئيس الوزراء مسؤولين لبضى أقل الدبانة لبضى أقل marti sharafta kale dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf ii ah inaan idinkala soo qayb galo munaasabaddan lagu furayo kalfadhiga toddobaad ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudanayaal iyo marwooyin waxaa noo yaalla howlo badan waxaa la soo gudagalay marxaladdii transitional periodka ama marxaladdii intiqaaliga ahayd waxaa looga baahan yahay mas-uuliyadda halkan fadha dhammaantood isku duubni iyo hufnaan
marxaladaha siyaasadeed iyo marxaladaha caafimaad darro ee jira, arrimaha amniga, daadadka ku soo rogmaday meelo ka mida dalka oo ay ka mid tahay magaalada caasimadda ee Muqdisho. dhammaan caqabadahaas ayagoo hor yaalla ayaa haddana waxaa la soo gaaray xilligii kala guurka ama waxaa qarka loo fuulay xilligii transitionalka. sidaa darteed waxaan idinka codsanayaa muddada aan joogo xafiiska dhammaantiin inaan garab igu siisaan, anna aan garab idinku siiyo qof walba hawshiisa. haddii arrintaas ay noo suuro gasho, waxaan rajaynayaa doorasho noogu dhacda jawi nabdeed iyo dal caafimaad qaba iyo dawlad cusub iyo dal nabad ah inaan dhaxalsiin doono bulshada Soomaaliyeed. walaalayaal, mudanayaal iyo marwooyin, waxaad ogtihiin bulshada Soomaaliyeed inay dhammaantiin idin han weyn yihiin. mar haddii aad taas hubtiin oo aad ogtihiin, waxaa waajib nagu ah dhammaanteen mas'uuliyaddaas iyo waxa shacabku ay naga sugayaan inaan sida ay tahay u garanno, xil gaarana iska saarno. walaalayaal, waxaan rajaynayaa mas'uuliyaddeenna ah mas-uuliyad wadareedka inaan si guud iyo si gaargaar ahba u gudan doono sida ay tahay. ma rabo inaan hadalka sii badiyo, mas-uuliyiin badan inaan u fadhiya. intaasaan rabay inaan idin waana idin salaamaya. wabillahi tawfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad iyo aad buu u mahadsan yahay guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada Muqdisho. mudane madaxweyne iyo mudanayaal, munaasabadda furitaanka kalfadhigani toddobaad waxaa joogta madax aad u badan oo ah madaxda Soomaaliya iyo baarlamaanka labada gole. xaaladahan taxadarka caafimaadka la xidhiidha aad bay munaasabaddu u kooban tahay. waxaan u yeedhayaa hadda guddoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdulaahi. mudane guddoomiye soo dhow. بسم الله الرحمن الرحيم. مدن مدحوينه مدنياشا لبدا أقل بارلمان كفدرالك الصوماليا مرتي شرفك وقهرينيك قدوما سلانك الكعدو يو قيمة بدن وحانني دينك هاد علينيا سو قيب قالك سو قيب قشين حفلة فرتانك كالفردك التضبات بارلمان كفدرالك الصوماليا sida uu yahay dhaqanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. munaasabada furitaanka kalfadhiga golaha aqalka sare waxaa caadi u ah inuu warbixin idinka siiyo hawlihii u qabsoomay kalfadhigii lixaad iyo hawlaha u yaala kalfadhiga maanta furmaaya, iyadoo dalku galayo marxalad loo baahan yahay in si dhow u wada shaqeeyaan hay'adaha dawladda federaalka, dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka iyo daneeyayaasha siyaasadda Soomaaliyeed oo idil, si loo fuliyo ballanqaadkii aynu qaadnay 2016 dhammaadkiisii markii la dhisaayey baarlamaanka tobnaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. mudane madaxweyne, mudanayaal iyo marwooyin, caabuqa safarka ah ee la magac baxay
COVID-19 wuxuu caalamkoo idil geliyey xaalado aan marnaba uusan aadamuhu ka fikirin inay dhici karaan, wuxuuna mar qura kalifay in noloshii caadiga ahayd ay istaagto, isagoo dunida ku keenay dhibaatooyin isugu jira kuwa caafimaad, dhaqaale iyo bulshaba. gaar ahaan dalkeenna Soomaaliya wuxuu noqday mid aad ugu nugul dhibaatada uu keenay cudurka COVID-19, maadaama aynu nahay dal dagaallo sokeeye ka soo baxaya oo ku hawlan dawlad dhisid. COVID-19 wuxuu noqday mid markiiba ku faafa dalkooda. haddaba anigoo ku hadlaya magaca golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaan munaasabadan tacsi ka diraya dhammaan dadkii inooga geeriyooday, eebbana uga baryaya inuu jannadiisa firdowsa ka waraabiyo, inta uu hayana eebba u yasiro. si la mid ah hay'adaha kale ee dawladda, wuxuu cawaaqibkani abuuray caqabado uusan baarlamaanka federaalka Soomaaliya horay u arag, taasoo nagu kaliftay inaanu kordhinno fasaxii baarlamaanka federaalku ku jiray, iyadoo ujeeddadeennu ahayd inaanu ka fakarno qaab kale oo baarlamaanku ku shaqayn karo. waxaa inoo qorshaysan in golo waliba gaarkiisa u tashi u galo maalmaha soo socda, dib u eegis lagu sameeyo xeeroosaadyaasha si loo helo qaab lagu shaqayn karo inta aynu la tacaalayno cawaaqibka COVID-19. taa waxaan u samaynaynaa inaynu si habsami leh u gudanno waajibaadka asaasiga ah ee na hor yaal, oo ay ugu horreeyaan doorashooyinka iyo dib u eegista dastuurka. mudane madaxweyne, mudanayaal iyo marwooyin, golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kalfadhigii 6aad wuxuu ahaa kalfadhi ayna sanataradu u kala kicin gudashada waajibaadkooda sharci dejinta. muddadii kalfadhiga la soo dhaafay ee 6aad, goluhu wuxuu ansixiyey 16 sharci oo aad muhiim ugu ah maaliyadda, doorashooyinka iyo maamulka guud ee dalka, kuwaasoo kale ah sharciga golaha minlayaasha caafimaadka, sharciga xuquuqda siyaasiyiinta dawladda, sharciga xafiiska madaxa bannaan ee hantidhowrka guud ee qaranka, sharciga howlgabnimada xaqsiinta iyo hibooyinka xubnaha ciidamada qalabka sida, sharciga shirkadaha, sharciga baatroolka, sharciga maaraynta maaliyadda guud, sharciga wax ka beddelka xeerka saxaafadda, sharciga maamulka dakhliga, sharciga wax ka beddelka sharcigii iibka iyo qandaraasyada qaranka, sharciga canshuuraha furdooyinka, sharciga isgaarsiinta qaranka, sharciga doorashooyinka qaranka ee heer federaal, sharciga miisaaniyadda qaranka, sharciga duulista rayidka, sharciga jaangooynta iyo tayadhowrka Soomaaliyeed. fiiro gaara wax intisa sharciyeeda oo golaha aqalka sare hor yaalla ma jiro wakhtigan xaadirka ah, wuxuuna diyaar u yahay inuu goluhu ka howlgalo shuruucda iman doonta ee lagama maarmaanka u ah doorashooyinka iyo dib u eegista dastuurka. goluhu wuxuu wakhti badan geliyey inta sharciyadii la hor keenay, waxa uu ka talageliyey dhammaan dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka, isla markaana wuxuu qabtay dhegaysi dadweyne oo daahfuran oo laga baahiyey warbaahinta, iyadoo si toos ah uga soo qayb galeen xubnaha guddiyada ku shaqada lahaa inta sharciyeedyadaas, wasaaradaha soo diyaariyey inta sharciyeedyada, aqoon-yahano, dhallinyaro, haween, culummo iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada si loo ururiyo aragtidooda looguna daro inta sharciyeedyada markaa hor yaal golaha aqalka sare. arrimaha dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah, mudane madaxweyne, mudanayaal iyo marwooyin,
geedi socodka dib u eegista dastuurka Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay kii ugu muddada dheeraa adduunka. bulshada caalamkuna waxay noogu manno sheegataa inay ku bixiyeen lacag fara badan sidii ay Soomaaliya u heli lahayd dastuur. sidaad aad la socotaan 2012 golaha ansixinta dastuurka ku-meelgaarkii waxay u igmadeen xilka dhammaystirka dib u eegista dastuurka ku-meelgaarka baarlamaankii 9aad oo isagoon waxba ka qaban xilkii dhammaystirka dib u eegista dastuurka ku wareejiyey baarlamaankii 10aad oo maraya gabagabadiisa. labadii guddi ee u xil saarnaa dib u eegista dastuurka ku-meelgaarka oo wasaaradda dastuurku kaalinayso waxay soo eebiyeen dib u eegista dastuurka waxayna u soo gudbiyeen qabyo qoraalkii dib u eegista labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo looga fadhiyo inay bilaabaan ka doodistiisa kalfadhiga 7aad. guddiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu horay noogu soo gudbiyey qaraar tilmaamaya habka ansixinta dastuurka oo ay tahay in baarlamaanku ansixiyo si uu u gudagalo ka doodista qabyo qoraalka dastuurka. haddaba waxaan ku boorinayaa labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya in mid ka mid ah hortabintooda kalfadhigan ay noqoto inuu guto waajibaadka ka saaran dastuurka si dalkeennu uga baxo isqabqabsiga dastuuriga ah ee ku jira loona helo dastuur ay dowladaha xubnaha ka dowladda federaalkii waafajiyaan dastuuradooda. arrimaha doorashooyinka heer federaal mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin waxaan ku dhownahay xilligii aynu qaban lahayn doorashooyinkii heer federaal oo noo madlanaa si aynu u fulinno ballanqaadkii aynu qaadnay 2016 dhammaadkiisii oo ahaa inaynu qabanno doorasho qof iyo cod ah. kalfadhigan 6aad waxaynu ansixinnay sharcigii doorashooyinka qaranka ee heer federaal. waxaa inoo qorshaysan in aynu ansixinno kalfadhiga 7aad sharciga qabyatirka sharciga doorashooyinka oo aan u xil saarnay guddi wadajira oo ka kooban labada aqal. waxaa iyana aan ku tala jirnaa in aynu meel marinno sharcigii wax ka beddelka sharciga axsaabta siyaasadda. qabashada doorashooyin heer qaran waxaa lagama maarmaana in wadatashi degdeg ah ay isugu yimaadaan dhammaan xukuumadda federaalka baarlamaanka federaalka dowladaha xubinta ka dowladda federaalka iyo daneeyayaasha siyaasadda si loo helo qaab raalli la isaga yahay oo doorashada lagu galo. waxaan filayaa in baarlamaanku isu xil saari doono doorka isu keenidda dhammaan qaybaha kala duwan ee aan looga maarmayn qabashada doorashooyinka heer qaran. dhismaha golaha aqalka sare dhismaha golaha adeega garsoorka. mudanayaal iyo marwooyin mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin ugu dambayn aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu ku adkaynayaa xukuumadda federaalka Soomaaliya inay gudato doorka kaga aadan dhismaha golaha adeega garsoorka oo u soo gudbiyaan xubnaha ay soo sharaxaan kalfadhiga 7aad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya si isaguna uga guddo doorka kaga aadan dhismaha golahaasi oo saldhig u noqon kara helitaanka garsoor madax bannaan oo ay ku jirto maxkamadda dastuurka oo iyadu u xil saaran go'aanka gaarista khilaafaadka dastuuriga ah ee labada heer dowladood iyo arrimaha dastuurka oo dhan. waxaa iyana lagama maarmaana doorashooyinka fooda inagu soo haya oo haddii ay dacwo ka timaado go'aanka gaaristeeda ay awood u leedahay garsoorka madax bannaan uu awood u leeyahay. gabagabadii waxaan ugu baaqayaa
xukuumadda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka inay wadahadal ay ku dhammeeyaan khilaafaadka u dhexeeya iyagoo u turaya dadka Soomaaliyeed ee la daalaadhacaya cawaaqib xumada cudurkan COVID-19 fatahaadaha webiyada daadad ammaan la'aan iyo dhaqaale xumo aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhegaysi wanaagsan ومحسن يا قدوميوه عدنا وحا soo dhaweynaa hadal jeedinta gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan si uu uguna wareejiyo khudbadii dastuuriga ahayd ee madaxweynaha jamhuuriyadda aad iyo aad baad u mahadsan mudane gudoomiye soo dhow بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحوينها جمهورية فيدرالك الصومالية قدوميها قولها أقل كسرية برلمان كفيدرالك رئيس الوزراء حكومة فيدرالك xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaanan hadal jeedinteeda u sii gudagelin anigoo ku hadlaya magaca golaha shacabka waxaan u dirayaa tacsiyo tiiraanyo leh dhammaan ummadda Soomaaliyeed dadkii ku geeriyooday cudurka COVID-19 waxaan si gaar ah tacsiyo ugu diraynaa eheladii iyo qaraabadii xildhibaan aadan cali xasan aadan jamhuuriya waxaan dhammaantood ilaah uga baryaynaa jannadiisa fardowsa inuu ka waraabiyo mudane madaxweyne xilka guddoonka baarlamaanka xilliyada ay furmayaan kalfadhiyada waxaa ka mid ah in laga warbixiyo kalfadhigii la soo dhaafay jihaynta kalfadhiga xilligaasi furmaya meesha uu ku socdo iyo howlaha horyaalla golaha inuu warbixin ka siiyo ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markii uu dhammaaday kalfadhigii lixaad waxaan xildhibaanada golaha shacabka u jeedinay in fasaxooda bil keliya uu noqdo si howlaha muhiimka u ah doorashooyinka qaranka ee golaha horyaallo ay ka mid yihiin dhammaystirka afarta xeer ee sharciga doorashooyinka uu farayo sharciga casaabta iyo howlaha kale ee xiriirka la leh doorashada 2020 ay baarlamaanka ugu suurta gasho in waqtigooda lagu dhameeyo fikrad fiican lagama haysanin in dunida iyo gaar ahaan dalkeena uu saameyn doono cudurka COVID-19 oo aan horay loo arag uu saameeyey nolosha qof kasta ee ku nool dunida iyo gaar ahaan dalkeena arrintaani waxay hakisay habsami u socodka dhammaan howlihii dowladaha iyo adeegyada bulshada waxaana la hakiyey lana xakameeyey qaybo ka mid ah xuquuqdii iyo xorriyaadkii dastuuriga ahayd ee muwaadin kasta ee ku nool dunida uu lahaa furitaanka kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka tobnaad allah mahadiisa waxaa guul weyn noo ah inaan awood u yeelanay inaan furno kalfadhiga baarlamaanka iyadoo ay dalka ka jiraan duruufo aad u adag ee uu sababay cudurka faafa ee coronaviruska mudane madaxweyne marka la eego xaaladda soo korortay ee faafidda COVID-19 waxay caqabad ku abuurtay howl maalmeedkii joogtada ahayd ee baarlamaanada caalamka guud ahaan iyo gaar ahaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida hay'ado ama ururo kale ayaa dad tiro badan isugu yimaadaan hal meel loogana baahan yahay inay gacan ka geystaan yareynta halista gudbinta COVID-19 iyadoo isla markaa loo ogolaanayo wada shaqaynta lagama maarmaanka ah ee ka dhaxaysa xubnahooda iyo
shaqaalaha taageera dowladda iyo shacabka arrimaha doorashooyinka mudane madaxweyne ansixinta sharciga doorashooyinka qaranka ee kalfadhigii lixaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya runtii waa guul weyn hase ahaatee waxaa weli harsan arrimo saldhig ah oo ay tahay in sharciga uu qeexo labada guddoon ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay 1 March 2020 magacaabeen guddi wadajir ah oo ku meel gaar ah ee dhamaystirka sharciga doorashooyinka qaranka oo ka kooban 17 xildhibaan oo ka tirsan xubnaha labada gole ee baarlamaanka waajibaadka shaqo ee guddiga waxaa ka mid ah inay la tashadaan cid walba oo sharciga tayeyntiisa looga maarmin sida guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo federaalka dowlad goboleedyada dalka hay'adaha amniga xisbiyada siyaasadda iyo dhammaan ururada bulshada rayidka qiibahooda kala duwan si ay u soo diyaariyaan xeerarka hoos ku xusan ee laga sugayo inay baarlamaanka hor keenaan xeerka deegaamaynta kuraasta baarlamaanka xeerka xaqiijinta qoondada haweenka xeerka doorashada xubnaha labada gole ee gobollada waqooyi ee Soomaaliya xeerka xuquuqda matalaadda aqalka sare ee gobolka Banaadir intaa waxaa sii dheer guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka Marwo Xaliima Ismaaciil ayaa loo qorsheeyay inay hor timaado labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya 27 bisha Juun si ay u soo bandhigto qorshayaasha iyo cayimaadda taariikhda doorashooyinka la qabanayo si waafaqsan qodobka 13aad faqradiisa 3aad ee sharciga doorashada waxaan rajaynaynaa in dhammaan xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya soo dhaweyn iyo wada shaqeyn buuxda siin doonaan guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka mudane madaxweyne raalli aada waxyar mudane madaxweyne muddo xileedka golaha u harsan oo ay tahay muddo aad u kooban haddana ay indhahan uga hayaan shacabka Soomaaliyeed si uu baarlamaanka federaalka Soomaaliya u soo saaro go'aano dhaxalgal ah si waafaqsan qodobka 10aad ee qodobka 109 ee xarafka e iyo qodobka 109 xarafka ba xukuumadda waxaan si waafaqsan qodobada aan kor ku soo sheegnay waxaan xukuumadda ka sugaynaa in si dhaqso ah u soo gudbiso xubnaha guddiga adeega garsoorka xubnaha guddiga xuquuqul insaanka iyo maxkamadda dastuurka oo muhiimad gaar ah u leh dhinaca doorashooyinka qaranka si baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ansixiyo iyadoo aan ku kalsoonahay in baarlamaanka 10aad uu gudan doono waajibaadkiisa culus ee laga sugayo geedi socodka dib u eegista dastuurka wuxuu runtii calaamad weyn u yahay dib u dhiska dowladnimadeena Soomaaliyeed uuna noqon doono guul weyn oo dalka gaaray annagana na siin doono taariikh weyn haddaba waxaan dhammaan xildhibaanada sharafta leh ee baarlamaanka ka codsanaynaa inaan si adag kalfadhigan uga wada shaqeyno si aan himiladaasi uga gungaari lahayn guddiga la socodka dastuurka wuxuu soo dhammaystiray qabiqoryaalka wax ka beddelka dastuurka ee dhammaan cutubiyada dastuurka ku-meel gaarka ah ee Soomaaliya qabiqoraalka wax ka beddelka dastuurka ayaa waxaa loo soo bandhigay lagana tashaday shacabka iyo dowlad goboleedka Galmudug
hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyadoo guddiyadu ay ka soo ururiyeen talooyin wax ku ool ah guddiga la socodka ee dastuurka guddiga madax bannaan ee dastuurka waxaan rajaynaynaa inay soo dhammaystiraan la tashiga shacabka iyo dowlad goboleedyada haddaba mudanayaal waxaa golaha hor yaalla qaraar ku saabsan habraaca ansixinta dastuurka oo ay soo gudbiyeen guddiga la socodka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya maadaama guddigu uu soo dhammaystiray howlihii dib u eegista ayaa waxaa lagama maarmaan ah in la ansixiyo qaraarkaasi si loo bilaabo doodda ansixinta wax ka beddelka dastuurka waxaan ammaan gaara u soo jeedinaynaa guddiga la socodka dastuurka iyo guddiga madax bannaan ee dastuurka mudane madaxweyne si loo yareeyo faafidda covid-19 kalfadhigan toddobaad wuxuu ka duwan yahay kuwii hore ee lagu qaban jiray dugsiga tababarka booliiska ee lagu martiqaadi jiray bulshada muqdisho qeybaheeda kala duwan maamul goboleedyada beesha caalamka iyo afhayeenada dalalka jaarka ah kalfadhiga lixaad ee aan soo dhaafnay waxa uu ahaa kalfadhii ugu shaqada badnaa baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaa la ansixiyey shuruuc badan oo ay ka mid yihiin sharciga doorashooyinka qaranka iyo shuruuc kale oo ay ka mid tahay shuruucdii deen cafinta waxaana ka mid ah sharciga dhismaha hay-adda dadka naafada ah heshiiska caalamiga ee naafada sharciga dhismaha guddiyada la dagaalanka musuqmaasuqa wax ka beddelka sharciga dakhliga warbixinta xisaab xirka 2017 hindis sharciyeedka leelitirka siyaasiyiinta Soomaaliyeed heshiiska midowga Afrika ee badbaadinta dadka ku barakacay gudaha Afrika كنقشة ميزانية 2019 heshiiska khuseeya ilaalinta hidde-dhaqameedka iyo midka dabiiciga heshiiska ilaalinta hidde-dhaqameedka aan muuqan hindis sharciyeedka shirkadaha ganacsiga hindis sharciyeedka maamulka maaliyadda miisaaniyadda 2020 hindis sharciyeedka petroolka heshiiska ka mid noqoshada hay'adaha damaanadda maalgashiga tarafyada badan wax ka beddelka sharciga furdooyinka wax ka beddelka sharciga iibka qaranka dib u eegista sharciga saxaafadda hindis sharciyeedka howlgabka iyo xaqsiinta ciidamada hindis sharciyeedka istatistikada Soomaaliyeed hindis sharciyeedka doorashooyinka hindis sharciyeedka duulista rayidka ee hawada hindis sharciyeedka tayadhowrka Soomaaliyeed ugu dambeyntii waxaan u mahad gaara u jeedinayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay diyaarinta xafladan furitaanka kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka gaar ahaan habdhowriyaasha baarlamaanka wasaaradda caafimaadka taliyaha ciidanka booliska mudane madaxweyne xildhibaanada sharafta leh ugu dambeyn waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo si maamuusan ugu codsanaya inuu xilkiisa dastuuriga guto oo uu ku soo dhawaado hadal jeedintiisa furitaanka kalfadhiga toddobaad baarlamaanka tobnaad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane madaxweyne ku soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم هذا الكفتن ينكفر يا إذن كرهالي كل أنتي نبدأ وأفحرنتهن قارن وأفرينهن مركا وحالي يرقفكم مركو دع مراتكم مدعوه كوا أفك فرن مهرو ودعي مرك مثل جيسين مدع كبضتي الحمد لله الحمد لله قدونك لبدا قولي بارلمانك xubnaha baarlamaanka ee aqalka sare iyo xubnaha baarlamaanka ee golaha shacabka ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha golaha wasiirada gudoomiyaha maxkamadda sare xeeraryaha qaranka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madax bannaan gudoomiyaha gobolka banaadir taliyayaasha ciidanka qalabka sida
gudoomiyaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka ee galmudug gudoomiyaha ee baarlamaanka dowlad goboleedka ee hirshabeelle bahda saxaafadda iyo dhammaan marti sharafta kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf ii ah inaan maanta oo ay taariikhdu tahay 6 aan hadalka dhamaysto si ixtiraam leh isu dhageysano madaxweyne ukaade xildhibaan habdhowryaasha si ixtiraam leh isu dhageysano madaxweynaha